wakhtigu waa uu ka duwan yahay dhammaanba bilaha kale ee sannadka ramadaan sidoo kale waxay tahay mid ay si weyn isu beddesho nolosha bulshadu dhinac walba saacaddu haatan waxay ku dhowdahay 6dii habeennimo saacadda bariga Afrika waxaana la gaadhay wakhtiga afurka halkan maanta joognaana waa mid kamid ah maqaaxiyaha ugu caansan ee magaalada Hargeysa ee waqtiga afurka ayaa la joogaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Hargeysa runtii si weyn bay maqaaxiyadan u yimaadaan ayuuna maanta waxa kamid ahay dadka halkani afurka u soo doontay isla markaasina ka afuraya hadii aad magaalada Hargeysa joogto waxaan kugula talin lahaa halkan inay noqoto goobtaada rabadaantu alxamdulillah waxa ku beegantay waqtigii hore ka yar qabow marka hadeer aad bay u fiican tahay rabadaan aduu waxaan ka maqanayba labada casho toban ka afra kulli waxa guriga naga soo saareen halka uga afrayno ayaa jira bacda afurka kadib halkan cashadeedu ku samaysan meeyadana inta badan way adag tahay inaad aragto asxaab fara badan oo sidoo kale isugu kulmay ama ugu kulmay maqaaxiyaha kala duwan ee magaalada Hargeysa marka laga yimaado waqtiga ramadaanta waana sababta ramadaantu ay uga duwan tahay guud ahaan bilaha kale ee sanadka ku jira runtii halkan ayaan cashadeedii ka sii wadan doonaa turkeyga ama afurkeyga aan ku samaysanay halkan waxa ka mid tahay goobaha aadka dhalinyarada iyo dadweynaha magaalada Hargeysa ay yimaadaan waqtiyada kala duwan diyaarta cuntooyinka iyo kafeeyada anagu maanta halkan ku afurnay cashadeedii halkan ku qaadanay goorna waxaanu tagi doonaa goobaha kale ee aan rabno inaan tusno ku yaalo magaalada Hargeysa ganacsiga suuqa weyn ee magaalada Hargeysa ayaa ah mid si weyn u shaqeeya bishani Ramadaan waxaana kumanaan ka mid ah dadweynaha magaalada Hargeysa ay yihiin kuwa halkan adeegooda ka qaata bishani saaxiibayaal saad wada arkaysaan halkani waa bartamaha magaalada Hargeysa saacaduna waa xilli dambe oo habeenimo galaasheeda waxa maraya baabuur aad u tiro badan waxaana ay ku tusaysaa saxmadda ka socota suuqa waaheen ee magaalada Hargeysa runtii dad yow fara badan ayaa halkani ka adeeganaya oo kumanaan ah saacaduna waa xilli dambe oo habeenimo waxaana ay tani ku tusaysaa sida suuqani looga adeeganayo iyo sida uu ganacsigu u socdo meheradaha kala duwan kafeeyada shaaha cuntooyinka meheradaha lagu iibiyo dharka iyo agabka kale ayaa dhammaantood camira ma sha Allah halkani waa Hargeysa gaar ahaan suuqa waaheen gudaha suuqani ayaana kula kulannay ganacsato daayir waxaana ay ku cabireen dareenkooda sidani alxamdulillah horta suuqa sanadkii hore guusay laakiin sanadkan alxamdulillah dawladdu si fiican ayay magaranaysaa suuqa u kala wadaa alxamdulillah ciidan kana la shaqeynaya dawladda ay ganacsiga ka warramin dadaalaya tumasha hal ganacsiga yar horta saacid ka warramo cadaro original lama tiibiyo qolku bawlay mooyane insha Allah taano gaari doonaa mukamiiski yaraaban wada insha Allah waka alxamdulillah hay mustaqbalka waxa rajeenay insha Allah taala de nin walba meel buu ka soo bilaabay ninka daafshiid meel yar oo soo soo bilaabayna insha Allah heer sare gaadhay rajeenay insha Allah saaxiibayaal anaguna maadaama ninkan uu yahay nin dhalinyaro ah oo suuqa magaalada Hargeysa ku ganacsanaya oo muujiyay xilkasnimo iyo inuu wax samaysan karo anaguna cadar baan ka iibsan doonaa maanta maadaama cadarada iibiyo si aan u dhiirigelino cadarkan ku qaadan doonaa ku dhiirigelin doonaa dadweynaha magaalada Hargeysa waxaan rajaynaynaa ku yimaadaan insha Allah oo ay ku dhiirigeliyaan sidaan ku dhiirigelin insha Allah meerada la dhiirigeliyo waxay ku taalaa bartamaha suuqa waaheen haatan waxaan u dhaqaaqaynaa qaybaha kale ee magaalada waxaan shidaal ka qaadanaynaa kaalintani oo ah mid leh adeeg casri ah si aan u sii wadanno safarkayga caawa saaxiibayaal haddana waxaan maraynaa bartamaha magaalada Hargeysa saad arkaysaan runtii waqtiyada habeenkii dadka ku nool magaalada Hargeysa aad bay u soo baxaan saad arkaysaan jam badan baa hadda halkan ka jira magaalada Hargeysa runtii waa magaalo aad iyo aad u dhismaysa sanadka ka dambaysa waqtiyada Ramadaankana waxa aad moodaa inay ka jam badan tahay oo ka mashquul badan tahay waqtiyada kale ee sanadka taas waxa ku tusaysaa sida bulshada ku nool magaaladani iyo guud ahaanba looga soo dhaweeyo bishani barakaysan ee Ramadaan magaalada runtii aad bay jam u tahay baabuur fara badan baa soconaysa
dukaanada maqaaxiyaha goobaha ganacsiyada dhammaantood aad iyo aad ay u furan yihiin taasi waxay ku tusaysaa sida bishan u tahay mid runtii dadku ay aad u xiseeyaan hargeysa quruxdeedii wixii dhan isku daba dhacsan yihiin insha Allah maashana hay laabana salaamana adiga rakaabka kula socdaba adoo wanaagsan hay soo wali adiga dad sidee naga horreen guud ahaan Hargeysa waxaa si weyn ugu soo badanaya masaajidda sida weyn loo qurxiyey masjidkan oo lagu magacaabo Masjid Faaduma ayaa ka mid ah masaajidda ay sida weyn ugu ogaan salaadaha kala duwan bulshada magaaladu waxaana uu yahay mid qaabka dhismihiisa ay ka muuqato farshaxanimo dheeraada goobaha laga helo adeegyada kala duwan ayaa iyaguna kuwa furan xilli walba oo habeenimo waxaana ay tani u fududaynaysaa bulshada ku nool magaalada inay si fudud u heli karaan xilli walba adeegyadooda saaxiibayaal saacado badan oo joognay suuqa weyn ee magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalada Hargeysa aanu dhex maraynay waxay soo gaadhay xilli dambe oo habeenimo waxaana la joogaa waqtigii laga suxuranayay magaalada Hargeysa iyadoo wali suuqa uu aad u camiran yahay ganacsigu aad u socdo waxyaabaha sida way ku soo jeedanayna waxa ka mid ah in xilliga Ramadaanta meheradahan ay yihiin kuwa aad u camira dadkuna aad u yimaadaan cuntada lagu cunaana ay tahay laxo ama canjeelo hadba kaad u taqaano oo dusha laga saaray hilibka yaryar loo yaqaano oo kacda ama muqbada runtii mid aad u xiiso badan cunitaanka cuntadan halka marka timaadana waxa dareemaysaa in cuntadii ay tahay mid ay dadku aad u xiisanayaan waayo hareerahayga oo dhan maqaaxiyo lagu gado ama lagu iibiyo cuntooyinka noocan ayaa yaala waxaana ku tusaysaa xiisaha ay u hayaan bulshadu masha Allah anaga laftayga aad baan ugu faraxsanahay kamid noqono dadka ka suxuranaya goobahani oo ku yaala magaalada Hargeysa isla markaasna ku suxuranaya cuntadani oo ah cunto dhaqameed waana waxa ugu adkaysin badan qof ku soomi karo muqmad iyo subag iyo furin iyo laxooda canjeelo wadanida marka dadka habeenka si fiican bay nagu yimaadaan way suxuurtaan qof kasta oo ku suxuurtaana bahasha uu ka mahad sheegtay wuxuu waa geel marka waxa laga yaabaa in qofku markuu ku suxuurto inaanu ilaa biri gaajoon ilaa maanta shaqeeyo kadib maanta saa kala wada shaqada daawade waxa intaasi inoogu dhammaaday muuqaalkeenii aan idinku tusaynay nolosha habeenkii ee Ramadaan iyo Hargeysa ku xidho Ayib Show lana soco muuqaal cusub